isku tashiga lagu hirgelinayo xarumaha danta guud iyo kuwa adeegyada asaasiga oo ah bulshada loogu qabto oo sanadihii dambe ka taabagalay deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug ayaa deegaanka Docolo Farale oo qiyaastii 20 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo waxa looga hirgelinayaa isbitaal ay dhismihiisa fulinayaan jaaliyada deegaanka ee ku nool wadanka Mareykanka. Suldaan Cabdikariin Maxamed Maxamuud Degal iyo gudoomiyaha deegaanka Docolo Farale ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha isbitaalka deegaankan oo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 20 deegaan oo barkulmis uu yahay deegaanka Docolo Farale. munaasabada lagu dhagax dhigay isbitaalkan ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin odayaasha dhaqanka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi. gudoomiyaha deegaanka Docolo Farale Sahal Xasan Nuur ayaa halkaasi ka jeediyay hadal kooban oo u badan mahadcelin iyo bogaadin ku qotonta jaaliyada isku hawshay dhismaha iyo hirgelinta isbitaalkan. dhagax dhiga isbitaalka Docolo ka soo qayb gashay isbitaalkaas oo ay ka qayb qaadanayaan dhismihiisa jaaliyada reer Docolo dad ka mid ah gabdhaha reer Mareykan iyo wadamo kale oo kala gedisan jooga ku qalab qaatay isku taxalluujiyay meesha inay ka dhisaan isbitaal aad u joogtaan awal ay isnaan labadan qol inta kale ay ku darahayaan qol weyn deyn iyo agab kale oo wixii kale oo isbitaalkaas u baahan yahay inay ku daraan gabdhaha jaaliyada ka soo jeeda oo meesha jaaliyada ka soo jeeda deegaankan dhismahan ka qayb qaadanaya aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. qaar ka mid ah bulshadii iyo mas'uuliyiinta ka qayb galay dhagax dhigga isbitaalkan ayaa sheegay baahida bulshada deegaankan ay u qabeen hirgelinta xarun caafimaad gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka. annagoo rabno inaan u dhagax dhigno isbitaal weyn ay kaga maarmaan magaalada Gaalkacyo oo masaafo u jidha bulsho weynta ka qayb qaadatay dhagax dhiggan iyo maaragtay dadkii dhaqaalaha ku bixiyay oo reer Mareykan iyo meel walba ay joogaan dunida oo rag iyo dumarba iska leh aad baan kaga mahadcelinaynaa. qablaha qolal ka soo bixisay qolal ka maqanba waxa la rabaa in guntiga loo soo furfuro in kalsooni lagu soo dhiibo ajar bay leedahay dadkan halkan jooga waa dayacan yihiin wada uma dhawa baawur uma dhawa magaalo uma dhawa gabadha caaw haday ama foolato ama se qof la qaniino ama lagama gaarsiin karo marka waxa la yeelay ajar badan baa ka soconaya ajarkaas waxaan rabnaa dadka jaaliyada dibadda joogta inay soo shaqaysato oo shaqadaas ducada soo aruursato annaguna aan maaragtay ku sii tabarrucno sidoo kale to af iyo aadin ba intaas la gaari karno. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb dhiga degma isbitaalka deegaanka Docolo waan ku faraxsanahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadkii ka qayb qaatay dhismaha isbitaalka deegaanka Docolo. gabdhahaasi waxay qaateen kaalin lixaad leh ayay qaateen kuwa kale ee na maqli doonana daawan doonana waxaan leenahay sidoo kale idinkuna ka qayb qaata deegaanka horumarkiisa iyo caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa. jazakallahu khayran. gunaanadkii munaasabada dhagax dhigga ayaa waxa hadal ka jeediyay odayaasha dhaqanka iyo Suldaan Cabdikariin Maxamed Maxamuud Degal waxayna sheegeen in baahida arrimaha bulshada ee ka jirta deegaankan aysan ahayn kaliya caafimaadka balse loo baahan yahay in wax laga qabto dhanka waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada asaasiga oo ah. ilaahay gargaar weyn ha siiyo intii noogu tabarucday haddaan reer Docolo nahay maalkooda iyo dadnimadooda iyo aqligoodana awlaadooda iyo diintooda iyo maalkooda intaba Allah barakeeyo. halkan maanta waxaan isugu nimid dhagax dhig isbitaalka Docolo Farale qayb ka mid ah inay ajarkan ay sameeyaan waxaan leenahay jazakallahu khayr wa mahadsantiin wax loo baahnaa baa sameeyeen aad iyo aad qaban qaabadan aad sameeyeen waxaan leeyahay anagoo dhan bay sharaf iyo farxad badan tahay magaalo aad iyo aad u qurux badan weeye oo u baahnay isbitaalkan iskuulna way u baahan tahay runtii. bulshada deegaanada Galmudug ayaa sanadihii dambe waxay bilaabeen isku tashi ay wax uga qabanayaan baahiyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wadooyinka kuwaas oo asaas u ah nolosha bini'aadanka. Saadaq Saciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.